haddii aad rabto inaad guul dhaqso u gaadho inaad kamera dhaliso hadafkaaga si fudud waxaad u baahan tahay inaad mentor yeelato inaad tababaro yeelato ma jiro qof badana guul gaadhay mentor la'aan tababaro la'aan oo fiirso kubadda oo fiirso ciyaaraha meel kasta markaad eegtay businesska oo fiirsato ganacsiga oo fiirsato dadka meel sare gaadhay hay gaadhay qof waxay leeyihiin mentor ay leeyihiin qof ka tababartay leeyihiin haddaba inaad mentor yeelato qof tababara yeelato ma fudud way adag tahay in dadka la helo muuqaalka waxaan kugu sharxi doonaa sababta ay muhiimka u tahay sababta ay dadkan u adagin la helo iyo sida aad ku kasban karayso inaad qofka hesho waxa weeyaan horta inaad mentor hesho waad u baahan tahay sababta waxa aad sameynayso waad ka gaari karaysaa guul laakiin maybe waqti soo qofku ka caawiyo in waqti ka fudud aad waqti ka horeeya aad heli karto kale in adiga ku qaato 10 sano 5 sano wixii kugu qaadan lahaa asaga oo 2 sano kugu soo dhamay wixii 2 sano kugu qaadan kar lahaa oo sanad nuskeed 6 bilood kugu soo dhamay wixii sanad adiga kugu qaadan lahaa oo 3 bilood kugu soo dhamay sababtoo qofkan hortaaba hore u soo sameeyay waxaan uu sii maray wuxuu garanay wadadii waxaad sameeynaysay iyo waxaana sameeynin meelaha fududeed mari karayso marka wuxuu ka caawinayaa inaad horumarkaad rabtay aad hore u gaari karayso sida awgeed waa laasim inaad yeelato qof mentora kaliya waad gaari karaysaa ma oran karayo qofku kaliya ma sameyn karay laakiin aad bay u fiican tahay waana wax adduunka oo dhan ay isticmaalaan meel kasta maanta tusaalaan u soo qaadano macallin buu lahaa soo qasab waa inaad macallin yeelato tababara ama aad ka eeganayso ama aad ku dayanayso aad yeelato okay dadkan haddaba aad leedahay tababarayaasha inta badan waa mashquul way adag tahay in la helo sababtoo qofkan waa sababta adigu aad rabto inuu mentor kugu noqdo maadaama meel buu guul ka gaaray maadaama meel guul ka gaaray adigu ma tiid qofka kale haati ay raba inuu mentor noqdo waxaa jira dad kale oo saadoo kala raba iyaguna inay mentor noqdaan soo intaasoo kun oo message ba soo galaya soo waa inuu doorto qof dadkan ka duwan oo caawin karayo waxayna u ciyaarayaan geemtan guusha nooc ka duwan sayna ku arkayna caadiga right soo waxa weeyaan dadka ula shaqeynaya waa sidee inuu eego marka aad qofkan la xiriirayso waa inaad adigu ahaato qofkani rabo ama waxaan qofkani uu ku jiro qof guul ka gaari karay waa inaad tusi karayso kale la disay tusaale sheekan kaaga sheekeynaya waxa dhacday markaan businesska soo galay ganacsiga aniga mentorkeygii koobaad inuu dhaxmartay right soo waxa dhacay markaan businesska soo bilaabay waxaan ku soo bilaabay nadwa marketing wax la yiraahdo MLM kuwaas oo ah kulli qof recruit sameeya ama product baad iibinaysaa right so aniga qofkii recruit gareeyay ee qoray anigu mentor noqonaya sida caadiga qofka direct ku diiwaan geliya ku noqonaya mentor so anigu se waxaan rabay markaan soo galay qofkan shirkadda mid meel high sare ka gaarsiisan oo aqaan inuu mentor noqdo isla groupkiisi baan ku biiray qof kale diiwaan galiyay marka saas ku diiwaan galiyay waan u qoray like waxaan rabaa inaan guul gaaro ma caawin karaysaa inaan heerka gaaraan rabaa fadlan in noqo mentorkay u akhriyo kuma soo jawaab so waan wacay telefonkii wax biiga muu qaban iguma soo celin so wax isweydiiyay okay how you can so waqtigaana waxaad waqtigaas si diyaariyay akhriyay waxyaalo badan si garnay maskaxayda aad bay wax uga furnayd ma siyahin perfect laakiin waan garnay waxooga dan waxaan sameeyay in balan baa lagu siinaya aad ku shaqeynayso right so it's like 30 cisho waa inaad meel position gaadho kale ugu dambeyn oo kale lagu leeyahay 9 cisho positionka waa inaad gaadho kale jira waxaan sameeyay in positionkii 30 cisho loogu talagalay 5 cisho ku gaar it's like inaan recruit badan sameeyay inaan wax badan iibiyay sales badan sameeyay aan shirkadii dad badan keenay aan dad badan alaabta ka iibiyay aan soo galiyay faa'iido badan dan aan positionkii 30 cisho aha ku gaaray 5 cisho dan waxa dhacday in positionkii labaad ee 9 cisho aha aan ku gaaray 2 weeks waxay u sababtay ninkii maadaama teamkiisa kamid ahay oo arkayo inta aan register gareeyay waxaan iibiyay productan iibiyay positionkan gaaray iyo sa groupka lagu soo hambaliyay inuu toos soo waa ka bacdi wila soo hadlay maanta laga bilaabaan isbaranay dan waqti markaas la qaadanay ee waxoogaa mindsetkiisa oo sharaxay sida wax loo gaaro sida wax loo sameeyo wax badan iga caawiyo wuxuu sheegay inuu la shaqeeyo kaliya dadka playerska so players waxa ka dhigantaa dadka raba waxa loogu talagalay wax ka badan sameynay 110 sameynay tusaale ahaan oo kale waxba laba shay qabaa lagu dhahay afar jeer bad qabato wixii ama matalan product baa waxba ku soo dhameynaysa usbuuc waxa ku soo dhameysay 2 weeks waxba waxa ka qaadanaysa 2 saacadood hal saaca ku soo dhameysay dadka app player leeyahay sababtoo dadka guusha gaaray waxay rabaan wax walba inay double sameeyaan inay maalkooga double gareeyaan oo laba jibaaraan in farxadooda laba jibaaraan in ay family-googa caawiyaan caawimaadooda in nooc kasta oo nolosha kamidaba ay double sameeyaan nooc gooniyo fikirayaan markaan leeyahay waa taas weeyaan sa awgeed waa inaad adigu tusi karayso la disay laga yaabaa imka inaad tiraahdo kale okay anu business hore uma gelin adoo marketing kuma jiro ama product qof ay sameeyay kuma jiro laakiin waxa rabaa inaan guuleysto wax inaan sheegaan guul ka gaaro soo qof bad kulay eeganaysa aad leedahay qofkaas aan ka barnay soo qofkaas tusaale ahaan oo kale u qortay uu ku soo jawaabay like wax dhahday inuu tababar ku noqdo haduu ku soo jawaabo tababar ku noqdo waad perfect oo mentor ku noqdo hadii kale waxa sameyn karaysa oo kale tusaale ahaan oo kale okay wixii isagaad weydiisay samee adigu lafta tijaabi kabacdi eeg average intuu ku sameyn karayo intuu average ku sameeyay in ka badan ku sameey tusaale ahaan oo kale wuxuu sameeyay qofka average inuu usbuuc ku qaadanay hatta ku soo dhamayso 2 days dan isku eeg level ka labaad imsuu qofka average ku dhameey dan markaad laba qiso samayso
u qor message kale oo leedahay waxaan rabaa inaad mentor ii noqoto saasaan sameeyay adigoo waramaysa qisadaada soo qofku uu cajibin doonaa una ka heli doonaa waxa samaynayso it's like waa qisas wixiina waxaad tusaysaa inaad diyaar u tahay sababta isaguna ma rabo inuu qof kastaaba uu u noqdo mentor qof ay ka go-antuu rabaa waqtigiisa ku caawiyo dan wuxuu arkaya inay waxaan adiga ka go-an tahay adigana waxay kuu noqonaysaa in aad hesho qofka ku caawinaya waxyaalaha badan dadka dib u dhigan waxa weeyaan waxay ka cabsoodaan ama ka xishoodaan inuu qof caawimaad weydiistaan ceeb ma inaad qof wax weydiisato waxaan la garanay ma garanayso soo qof garanaya jira weydii isaga dhanba ku farxaya inuu ku caawiyo tiraad wad garanaysa waxaan u baahan adiga caawiso kabacdi marka qofku ka caawiyo he feels good you learn something adiguna qof kale aad ku caawin doontaa waxaana weeyaan waa weeyida badana lagu guuleysto inaad raadcaysato qof adiga ku caawin karaya adiguna aad caawin karayso qofka aad caawinay dad aan wax weydiiyo soo waxaan garanay ask them weydii ceeb ma soo qofku garanay aad ma garanaysid tan waa baranaysaa wixii wax ka dambeeya adiguna dhowto qof kale aad caawinaysaa soo waxa weeyaan waa inaad barataan saa qofka wax loo weydiiyo sidoo kale aad mission ka samaysaan mentorka saas muhiimadiisa u tahay waxaan rajeynayaa waxoogaa inaan ka caawiyay gulbaan ku rajeynayaa